Assalaamu calaykum. Asxaabta soo dhawaada. Maanta waxaan diiradda saari doonaa ama aan ka hadli doonaa ninka adduunka ugu nasiibka badan, Frank Sirik. Wuxuu ka badbaaday 7 shil oo dhimasho ah, balse waa nin aad iyo aad u nasiib badan. Intaan muuqaalka u gudbin, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid, like-gana hanaga iloobin, gambalaalka digniintana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo cajiib ah. Mahadsanid. Frank Sirik waa 88 jir u dhashay dalka Croatia. Waxaa la sheegaa inuu yahay nin aad u nasiib badan. Sanadii 1962 isagoo safar ah oo tareen saaran ayaa tareenkii waxaa ku soo dumay buur baraf ah. Dabadeed tareenkii webi ayuu ku dhacay. Dhammaan dadkii saarnaa tareenka way geeriyoodeen, balse Frank Sirik alle ayaa ka badbaadiyay oo waxba ma gaarin marka laga reebo dhaawac yar oo lugaha ka soo gaaray. sanad kadib ayuu markii ugu horeysay noloshiisa diyaarad raacay. Markii diyaaradii duushay oo hawada gashay ayuu matoorkii ka cilidoobay. Nasiib wanaag, Franka daaqad ayaa u furantay wuuna iska soo tuuray diyaaradii. Dhulka kuma dhicine wuxuu ku duldhacay meel qashin aad u tiro badan yaalo. Wax dhibaato ahna ma gaarin ninkii isaga ahaa. inta kaliya kuma eka dhacdooyinkii ninkani soo maray. Sanadii 1966 ayuu soo raacay gaari bas ah si uu shaqadiisa u aado. Baskii uu saarnaa wuxuu ka soo dhacay buundo wuxuuna ku dhacay webi buundada ka hooseeyay. 4 qof oo baska saarnaa ayaa halkaasi ku geeriyooday, balse ninkii Franka ahaa waxba ma gaarin. sanadka markuu ahaa 1970 ayuu gaari ama baabuur soo iibsaday Frank. Isagoo gaariga kaxeynaya ayaa si lama filaan ah matoorkii u cilidoobay. dab ayaana qabsaday. Isla markiiba gaarigii ayuu ka booday. Ilbiriqsi kadibna gaarigii ayaa qarxay. 3 sano kadib 1973 mar kale asigoo wata gaari cusub ayaa gaarigii ka cilidoobay. dab ayaana ka kacay. Ninkii Franka ahaa dadaal badan uu sameeyay kadib gaarigii ayuu ka booday. Waxna ma soo gaarin marka laga reebo timihiisii oo gubtay. sanadii markay ahayd 1995 ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo goonaya laamiga meesha dadka ay maraan ayaa baabuur noocyada baska ardayda qaada fariinka soo goostay. Ninkii Franka ahaa baabuurkii ayaa dardaray ama jeeray, kadibna ninkii isaga ahaa wax soo gaaray ma jiraan. Waa nin nasiibkiisu aad u wanaagsan yahay. Waxaa jira wadooyin halis ah oo mara buuraha dushooda. sanadii markay ahayd 1996 maalin maalmaha ka mid ah Frank Sirik oo buur dusheeda wada marta maraya ayaa goolad si lama filaan ah waxa uga soo baxay kolonyo baabuur ah oo nooca xamuulka ah. Franka markuu arkay xaaladda inay xun tahay ayuu baabuurka steerigiisa jaray, kadibna buurtii ayuu ka dhacay. buurta dhirirkeeduna wuxuu ahaa 300 feet. nasiib wanaag, ninka nasiibka saaxiibka la ahaa ee Frank Sirik wuxuu ku booday oo uu qabsaday geed ku yaalay buurta dhinaceeda. dadka dunida ku nool waxaa la is dheeryahay nasiibka. Frank Sirik intaasi waxa u dheeraa inuu ku guuleystay lacago fara badan. sanadka markuu ahaa 2005 ayuu wuxuu soo iibsaday warqad bakhtiyaa nasiib ah wuxuuna ku guuleystay $1,100,000 oo dollar. runtii nasiibkiisa waxba lagama qaban karo. fadlan walaal, adigoo maasan subscribe like-gana hanaga iloobin, gambalaalka digniintana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo cajiib ah oo la wadaaga asxaabtaada.